waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay adduunyada ka joogto. Maanta halkan waxaan doonayaa inaan idinkugu soo gudbiyo casharkii u horreeyay ee ahaa barashada musiga. Waxaan ku bilaabi doonaa xarfaha musiga. Waayo xarfuhu marka musiga la garaacayana hogagga laga garaacaya isla xarfahan baa la isticmaalaa. Marka bal toddobada xaraf ee ugu muhiimsan musiga waa ka koowaad waa do, re, mi, fa, so, la, ti iyo doodii oo soo noqonaysa do. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Marka ayadoo baladaba music garaacana waa kan la qaado waayo codka waxaa ku yeera jira delay baa ku jira marka intaan xarafkii taabto iyo codkayga isma raaci karayaan. Marka xarafkii u horeeya waa kan do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Marka waa do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Iyadoo gitaarna bal waa kan sug. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. waa toddobada xaraf ee musiga do, re, mi, fa, so, la, ti, do. marka qof walba music luqadda doona ku hadla alla hadlayso waa xarfaha loogu yeero. Laakiin markay dadka laatiinka ay fahmaan ama laatiinka wax ku qora waa marka qaar waxay isticmaalaan xuruufaha laatiinka. Markaana waxaa la isticmaalaa waa c, d, e, f, g, a, b, c sida isku dul qoreen halkanba ku arkaysaan. Waayo doodii waa c, reedii waa d, miidii waa e, fa, so waad arkaysaan si isugu kala xigan waa c, d, e, g, a, b, c sidii soo laabanaysa. waa qaabka laatiin ahaan marka loo qorayo musiga loo qoro. Marka xuruufahani marka aad keyboardka garaacaysaan waa toddobada key ee cadcad bay xuruufahani yihiin. Kuwa madmadow magacyada loogu yeero dib baan idinkaga soo sheegaya maadaama aan hal mar doonin wax walba inaan idiin wada sheego ku dhawaaqaysaan. Marka laakiin inaad xarfahan aad xafidaan waa muhiim weeyaan. Marka intaan casharkan aan ahayn ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.